لما دورا كره دواق ملوكاي مقردي ديوكاي وفيدي للوكاي دمير كوينتار ديما دوكينا دفاع عليه دلي يرويكاي وحان لما دورا كره دواق ملوكاي مقردي ديوكاي وفيدي للوكاي دمير كوينتار ديما لوكينا دفاع عليه ودلي يرويكاي kacdoonadii iyo banaanbaxyadii ugu ballaarnaa taariikhda aridinta la ogyahay soo mara deegaanada Sool Sanaaniga ahayn ayaa mar kaliya si isku wada mid uga bilaabmay deegaanada SSC mudaaraadyada lagaga soo horjeedo nidaamka jeegaanta ayaa ka qarxay kadib markii dagaallo ay dhex mareen ciidamada xaqudirka dawladda Puntland iyo maleeshiyada soo duushay oo horboodayo dagaalooga Muuse Biixi Cabdi kacdoonkan shacabka SSC ay ugu magac dareen duufaanta buluuga ayaa shacab la soo bixeen mar kaliya calanka buluuga ee cawaale dawladda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo kan dawlad goboleedka Puntland mudaharaadyada iyo banaanbaxyada ka soconaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxay isku dayeen caburiyaan oo ay hor istaagaan shacabka mudaharaada iyo maamulka jeegaanta balse shacabka magaalada Laascaanood ayaa ballan qaaday inaanay marnaba cabsi gelin doonin tignikada iyo rasaasta oo adeegsanayaan jabhadda jeegaantu ayna sii wada doonaan halganka iyo hawlgalka duufaanta buluuga haddaba deegaanada Fiqiful iyo Kulaalbooda Cadde iyo Damalaxagare oo la qaybsanaya walaalahooda Sool iyo Sanaaniga ayaa waxay bilaabeen inay soo dhaweeyaan kacdoonka duufaanta buluuga ee lagaga soo horjeedo kooxda jeegaanta waxa ayna banaanbaxyadan u dhiceen sida tan gudoomiyaha gobolka waxaan leeyahay tiim bare wala saabka ceerigaabo dadka Soomaaliyeed anaga soo gelin anaga ka saarayna wataad lahayd ana ku qasbay odayaasha uma baahni waayeel uma baahni iyagoo guurtidii iyo ganacsi aad la ballantay oo ay hawshii kuugu jiraan waadigii uma baahni dadka qoriga ku gelinaya Soomaaliyeed soo qaado kaale kaxay waxaan leeyahay isaaqow waxa idinka miyir qaba garxajis habar jeclana waxaan leeyahay jeegaanta de waxba kuma leehidin haddaad wax ku leedihiin buur madow baad ka soo dayn lahaydeen jeelka waanu noo taaniyadeynaa boqor buur madow boqor buu ahaa ummadeed isaga oo lagu xidhay ciidamada la kala qaado haddaba Muuse Biixi waxaan leenahay qasho dadkii uu boqor ka hadlayay meedka tukaraq yaala oo sida roogu uga dhargay waa kii uu buur madow lahaa ciidamada la kala qaado diidaysay haddaba qalqalo waa ka dadkaan waxaanu leenahay Muuse Biixi Laascaanood guriga la yiraahdo baynu isugu imaanaynaa waajibkeedaanu ka maraynaa beesha garxajis noo soo dirsay taaniyada waanu ka ajiibnayada Muuse Biixi oo la ballan adiga iyo ninka la yiraahdo Faysal Cali Waraabe waxa tiraahday dadku maqal aragne hadda Puntland cidna walaal kula maaha Faysal Cali Waraabe yar ku ballamay yiri dadka ka yada jacada hal uruuriyo halkiisina waa ruubay bal wuxuu ka dhafeenayna taa eegayna ta kale anagu waxaanu nahay Soomaaliya waxaanu nahay Puntland anagu ma rabno jeegaaniyo haddii aanu kale waxaan lagu akhriyo anagu waxa waa ka guurnay iyo Puntland halka aanu joognana waa Fiqiful wixii Soomaali diidana ma rabno wixii Soomaali diida dooni mayno dareenka yaga anagu gobolka Sanaag degmada Fiqiful madaxweynaha Farmaajo waxaan leeyahay madaxweyne waxaad lacag ku bixisay oo aad ku siisay maamulka nagu soo tuulay ee Somaliland dad la yiri duufaan baa heshay hub iyo sanad baa noo siistay waxaan leeyahay xilkii aad u dhaaratay oo ahayd tii Soomaaliya oo aad ku ballan qaaday oo aad kitaabka u gashay dadka Soomaaliyeed weeye waa dadka aad u dhaaratay Soomaaliya xawar kaliya ma aha annagu waxaanu nahay dadkii wadanka xoreeyay daraawiishtii dalka xoreysay waanu nahay gobolka Sool iyo Sanaag iyo Cayn Soomaali baale Somaliland ma laha annaga ku dhalan oo ku dhimanayna waana ku dhimanaynaa Faysal Cali Waraabana waxa la Faysal Faaruq
adiga waxba kuguma jiraan annagu daraawiish baanu nahay waxaanu nahay kuwii ingiriiska laayay waxaanu nahay kuwii ingiriis iyo talyaani kiciyo cudud ku dilay annaga Soomaaliland ilbiriqsi nagu qaadan mayso ilbiriqsi ka hadlayno banaanbaxa isugu soo baxnay waa degmada Fuqufuliye annagoo kaga soo horjeedna maamulka jeegaanta la magac qabiilka jeegaanta la magac baxay waxaanu hambalyeeyo bogaadin direynaa ciidamada geesiyaasha ee jiida hore jooga ee Puntland waxaanu leenahay hiil iyo hoob oo idin la garab taaganahay haddaanu nahay koonfurta gobolka Sanaag ee degmada Fuqufuliye halkani waa degmada Fuqufuliye waxaan sida ay u diidan baa loo wada diidan yahay Soomaaliya meel kasta oo ay joogaan waxaan leeyahay Muuse Biixi iskaga tag dalka aad joogtid intaada ku dhiman horta waanu diidanahay Soomaali diidka talabaad anigu waxaan hambalyeeynaa ciidamada jiida jooga baan hambalyo u dirayaa hambalyo dad abtirsiyo nahay oo Soomaali weyn ku abtirsada waxa weeye maamulka Muuse Biixi iyo ciida wato ma doonayno shacabka halka lagu leynayona raali kama nihin waanuna ka soo horjeedna haddaanu nahay deegaanka Damalaxagare gaar ahaan degmada Damalaxagare waanu ka soo horjeedna anoo ku hadlayo afka odayaasha Damalaxagare waxaan u sheegayaa inta isafgarato af Soomaaliga ku hadasha iyo inta dhagaa qabta nin dhagalida waa dhagalayahay inaanu anagu nahay Puntland inaanu Soomaaliya ka siinahay inaanu ka horjeedno maamulka Soomaaliya diidka inaanu ka horjeedno Muusena waxaan leeyahay adeer laba casha balanteeni ka hadhay tala waxaan kugu leeyahay haddii aad isdhiibi lahayd iyo haddaad carari lahayd Muuse wadiyo jeegaantu tashootayay ku seegi waxaan leeyahay diig islaam anagu ma doonayno wax badan baanu abhinay wali waanu abhinaynaa waxaanu leenahay ilmayada ka kaca war meeshini ku noqdo warna daaya war dal naga dhaxayo oo dad naga dhaxayo warna daaya haday tagi waayaan oo ay diidaan laadkooda yaqaan iyo leyntooda waxaanu leenahay nimanka xunxun ee sheegaanta lagu sheegay waxaan leeyahay nimanka xunxun wuxuu yiri ka gurguray gobol Sanaag kugu soo galina ii dorgomar iyo carf lagu raalaafta meel jooga Soomaali waa israacday maxaa tiraahdeen Soomaaliya Muuse waxaan leenahay caada qaataa Muuse waxaan leenahay Muuse Shaari waxaanu leenahay shacabka laaya masaakiiba iyo shacabka Muuse naga laaye waxaanu leenahay kuma doonayno oo kuma rabno oo kuma baahin dalkayaga iyo dadkayga nooga tag baan leenahay Muuse mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay intaada ku dhiban iskaga baah gobolada Soomaaliya Sanaag iyo Cayn baanu leenahay goobtu haday caraato carigo dhan wuu gubtaa goobtu haday caraato carigo dhan wuu gubtaa boqorka mooyaane biniyaani kama baqaan boqorka mooyaane biniyaani kama baqaan hartiyo soo cartamaya hor joogsan karaa hartiyo soo cartamaya hor joogsan karaa cudusaya saari carabiyaase ku celin karaa ka baxsadayaan iblays baan idin tumine baroonka lalaaya iyo beebe iyo dayacan amase baasuuka iyo suuga bilyada weyn ka baxsadayaan iblays baan idin tumine balay hadaba misano balay hadaba Somaliland dooni mayno sumbay wada Somaliland dooni mayno sumbay wada sanaadiqday watan sifir cad lagu diraa sanaadiqday watan sifir cad lagu diraa la kala saarayo silufba meel la dhigay la kala saarayo silufba meel la dhigay oo waa inaan samata bixinaan dhulkeena sigan oo waa inaan samata bixinaan dhulkeena sigan waxaanu ka hadlaynaa Soomaaliland duulimaadka Soomaaliland ay nagu hayso dalkayaga ku soo weerartay waanu ka hadlaynaa annagoo degmada Kulaala baa duulimaad kuma niniyada nagu duulimaada doori mayno dawladeedana ma rabno doori mayno annagu Soomaaliland iyo maamulkooda toona aragoodana ma rabno maamulkoodana ma doonayno dhulkayaga hanada waranagu waxa harti baxaanu baxnaa harti wuxuu baxaanu nahay baxnaa hadaanu nahay Kulaala anigu waxaan leeyahay anoo hadlaya magaalada Kulaala la yiraahdo waxaan leeyahay anagu dooni mayno sheegaanta iyo calanka yar dulka wareegaalaysanaya
waxa weeye ninkii laqlay waa la furay annagu wadani baanu nahay dalkayaga iyo dadkayaga baanu dhimanaynaa waxaanu nahay Puntland waxaanu hoos joognaa calanka Puntland waxaanu ku dhimanaynaa calanka Puntland waxaanu nahay Soomaaliya annagu ma nihin Soomaali diidka waxaanu u sheegaynaa daba dhilifka dhulka keenay wax allaale wixii dhintay inuu isagu sabab yahay oo isaga la weydiinayo naloona saarayo maxkamadda heeg naloo saarayo dan qabiil ma qabsado run baynu isu sheegaynaa qabiil ma qabsado waxaanu leenahay jeegaanta dalka aanu leenahay annagaana idin soo gelinay haddana annagu diyaar inaanu ka saaro waxaana idiin sheegayaa geeri iyo nolol baanu kala kumaanta dhex joogna waanu qaadanaynaa nolol baanu qaadanaynaa waana ku dhimanaysaan xaqdarraana ku dhimanaysaan islaam haddaad tihiin dalkayaga hawlyari noogaga kaca waa markaasaynu kala nabadgallaa islaam haddaad tihiin weeye wax Soomaaliya calanka Soomaaliya wixii kala goyn karaa ma uu jiro ma doonayno anagu nin khasab nagu hayo ila Soomaaliya ku noqda iyo caburin waxaanu diyaar u nahay Soomaali weyn baanu ka mid nahay ma taageersanin maamul dadban iyo mid khasaba iyo mid Soomaaliyeed qabiil ku cadfan ma aanu qaadanayno yeelina mayno degmada Kuraal Somaliland dadka la yiraahdo nagu soo duulay gobolka Sool haysta iyo degmada Xudun iyo dhulka ayaga oo dhan kaasa naga dhaxay anaga shacabkana waxaan leeyahay Soomaaliya aynu nahay Puntland baynu nahay guul aynu dalkeena ku xaraysano iskana ceelino goonistaagga dadka sheeganaya annagoo degmada Boodacade oo hoos tagta gobolka Sanaag waxaan doonaynaa inaan halka ka cadayno shucuurteedana ku muujino inaanan doonaynin maamulka Somaliland aanan doonayn Soomaali diidka aanan doonayn dadka jeegaanta la baxay aanan arki karin aanan doonayn goonistaaga Soomaaliya waa mid annagu Soomaali baan nahay meel kasta ay joogto Soomaaliya waa isku waa mid maxaan ku wax Soomaaliland la dhahay ma jirto Somaliland ma doonayno waanu diidanahay hadawna anagu ma doonayno waanu diidanahay haddaan nahay degmada Boodacade anagu ciidamada jilida jooga ee mujaahidiinta ana waxaanu direynaa hambalyo inay bogaadin inay ka safeeyaan cadowga duulimaadka ee waddankooda ka soo duugay taagta yar dadkaasi xaqdarray nagu haystaan xaqdarray nagu doonayaan mana doonayno mana taageersanin ciidan iyo calaf iyo xoog iyo xoolo wax allaale waxaanu haynona waa ku taageeraynaa waxaanu nahay reer Boodacade saxaafadda iyo waayeelka iyo urtida waxaanu ku salaamaynaa salaanka bacdi anigu waxaan ogeysiinaynaa adduun weynaha ciddii aanu wax wada gallay markii dawladda Soomaaliya burburtay nin waliba uu doonayay inuu xoogaa meel ka matuulo inta Soomaaliya la helayo waxay ahayd وانا صوماليا مرلمات كينا خاطومي هي ciidamada hargeysa ka yimi aanan anagu waxba la dhisan oo dastuur la gelin oo maamul la gelin dastuurkeeda anaga baanu wadaagnaa madaxweynaheedaan madaxweyne ku-xigeenkaanu leenahay sidaa waana u ogyihiin annana waa ogeysiinayna haddaanu nahay Boodacade waxay noo qabtaana ma jiro gobolatan hadday naguba dhow yihiin waxa la waa ama dushayada u shaqayaan askar فولستري ان دولة هوسة مدحة من ده حنوجا ما قبتها دوشين بين قبتي أنا بين نقطر صدر سيدا سان وجيسين يا دوينها أنا قوم مقعي ويا وحال وشيء يا عالم كا إلى أن هاي صوماليا مرك أورا سلم بركو مرك حكت وحال وشيء يا تذكر إسلام كا تذكر بشو دوري كا dagaalamaya tukaraq iyo agagaarkeeda inay qaataan alaabtooda kana tagaan tukaraq iyo waageeda oo aanay rabadaantooda iyo aakhiradood iyo ifkooda aanay waayin waxaan kale oo idin sheegaya ama caalamka u sheegaya annagu Soomaaliland lama qaybsan waxba ويالاي هويه ورتاريخ ذو وتير عديو تشكنولو له تاريخ ذو وتير عديو تشكنولو له بقول القرني تاغنتاي تبتيتاي بقول القرني تاغنتاي وتبتيتاي وروالا كتكيليا نكاي ميل isaga taale maantii tabaalu dhaco
buu nabarka tabtayo markaas ay u toostaa hadduu toogaleeyahay ingiriista leex wuu ogyahay tiirarkan dhigaye war ingiriista leex wuxuu ogyahay tiirarkan dhigaye tallooyinkii baarlada tunsanoo badan talyaanina halkii aan tagoba dhab uga tooreeye xawaashidana watan ku tolay tahartaa ceedhe xabashidana watan ku tolay taharta ceedhiini ninse taagyari ninse tuurleeyo taagyaru ima taag heloy marna haddaan tashado aadmiguba way taxgeliyaaye war mar haddaan tashado aadanu way taxgeliyaaye allaylehe tabtii aan la rabay way u taaltane haddaba biisi waxaa laga bilaabay nin baraka male birwaayaan oo islaamku badbaadiya biisinku waa afka bunkii carabka baarashii oo waanu baranee rabow baaska naga xija ay hoobe hooba ala hoobalayay haddaba saaxalkii waa kacayay sac wanaagsan baa la helay saaxalkii waa kacayay sac wanaagsan baa la helay si ciid hartii oo dhan qorigu safaynaya